رب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي جمعة وناكسن meel kastoo dunida uga nooshiin waxaan leeyahay nabadgelyada ilaahay iyo naxariistiisa dushiina ha ahaato dhammaanteenba allah ka dhigo walaalihii aan jeclahay la darsu jeclahay maantana waxaan rabaa hadduu rabbigay qadaro inaan qiso kale idinla qaybsado. qisadan waxaan soo daayay jimcihii hore iyadoo qoraal aan waxaan soo dhigay bartayda meesha oo commentiga intii qoraal akhriska taqaanay xoogay in way la kulantay in lama kulmin oo isma aysan arkin waxa igu xiran marka hooyooyin fara badan oo qoraalka akhrin oo jeclahay marka inaan video ka soo sameeyane taas aan u jeclaystay. qisadan idin guda galaya insha Allah aad iyo aad nolosheen u bedeli doontaa rabbigay hadduu qadaro. qofkii ku socdo wadadaasna aad u dhiirigelin uga heli doonaa insha Allah. macnaha gabadhan waxay faa'iido yeeshay hadda ku jirtay oo markaas ku sugneedna dhiirigelin ay ku noqonaysaa. haddaad ku sugneedna wax badan ka faa'iidi doontaa insha Allah. ayadana ajri xasanad Allah ka siiyo. walaasheen waxay dhahdeen abaay filsan ilaahay dartiisa aan ku jeclay ku bilowday salaanta muslimka markay ugu salaantay kadib waxay dhahday anoo aad u murugsan murugo fara badan ay haysato problem iska haysto aan waxaan soo galay tiri social media anigoo markaas ka raadinaya maxaadiro waxaan la kulmay tiri qisooyinkaaga aad soo dayso. waxay dhahday abaayo qisooyinka markaan dhageystay qalbiga ii qaboobay qalbiga ii degay waan dhageystay tiri kulligood xasilooni iyo qalbi deganaashan ka helay iyo farxad. waxay dhahday abaayo waxaan ku iri abaayo qolka saliga nabiga kaleey salaatu salaam igu dar waa igu soo dartay tiri khayr Allah ku siiyo. waxaan weydiistay tiri gabdhaha ku jira qolka saliga nabiga kaleey salaatu salaam inay ii soo duceeyaan oo murugo ay haysato xagga gurigeyga iga haysato. horta waxaan idin sheegaa walaalaheeyo ani ahaanteed markaan ka hadlo in yar ama meeshaas rabaa wax yarna idin ka fahamsiyo. dad aad u fara badan oo walaala ah oo qolku wada kulmay oo xan aan u kulmin markay ku duceeyaan maxaa u maleynaysaa ma sha Allah tabaaraka raxmaan faa'iido weyn halkaas noogu jirto horta sida runta ah. waxay tiri marka qisada noo sii wadaa abaay waxay tiri dikrigii aan la imid qalbigii waa degay tiri aad iyo aadan u fiicnaada qalbiga iigu dega farxad u helay noloshaydina isku bedesha. waxay tiri abaay dhibkii ugu horeeyay dhibkii haysta markii hore oo idinku soo biiraayo waxay dhahday ninkeyga hadduu baxo taleefana ka daba diraya waxaan leeyahay tir xaggaa aade markuu ugu yiraa shaqadan aad shaqa ma aadina naaga aadaan dhihi jiray tir qayle iyo buuq dagaal aan samayn jiray markuu guriga yimaado habeenkii uu daalan yahay oo nasiin uu imaado oo shaqo ka yimaado waxaan dhihi jiray tir waa qabsan jiray waxaan dhihi jiray tir xaggee aad shaqan xagee ka timid shaqan ka yimid shaqa kama imaan naaga ka timid dagaalan sii jiray. intaas waxaa ii sii dheeray dhahday ciyaalkii dhaga adeeg war maqli la'aan dhibaato aad weyn ay haysatay tiri abaay filsan. maalintaa waxay tiri adiga qisooyinkaaga dhageystay oo waxay tiri aan maaragtay qalbiga ii degay oo qolka saliga nabiga kaleey salaatu salaam ku soo biiray oo dikriga la imiday oo xuska ilaahay la imiday oo nimcadii helay oo qolka la iiga duceeyay ma sha Allah tabaaraka raxmaan noloshaydi way isbedeshay
ninkeyga hadduu yimaado farxad reereen soo dhaweyn weji furan hadduu baxo taleefon ma leh laga soo daba diro wuu yaabe deganaashada farxadda gurigay ku soo biirta ilmihii ismaqal maasha allah tabaaraka raxmaan waxa ii dhalatay nolol cusub marka horta walaalahayga qaaliga oo markastana waxay weydiisiin markaan idinkaga soo hadlaba qolka saliga aba ay filsan ugu soo dar gabdho walaalo xataa waxaan arkaa taleefankooda meesha soo dhigaa ma ahan inta ka bax telegram soo degso hadaa haysatani waaba haysatay aniga linkiga waxaan kugu soo qabanayaa groupka qaybta commentiga aan kugu soo qabanayaa markaas amba description-kan soo dhigayaa meesha hoose ku dhufso adiga join soo dhig groupka cidna kaama xigto la qaybso walaalahaaga kaleetood gabdhaha kaleetoodna la qaybso umadaas ku jirto halkaas ku soo biira qolka saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo midka kale oo nagu soo biir aad liibaantida labadooda waa idin soo dhigayaa labada group waa kaasaha walaalahay ilaahay subxaanahu wa tacaala nin kastoo dhibaataysa dhibka Allah ka fiido inta kurbaysana kurbada Allah ka fiido waxaa sabab u ah gabdhaha qisooyinkooda ay ku qanacday iyo faa'iidada ay ka heleen ee marqaati ilaahay uga noqdeen ilaahay quraankiisa iyo rasuushiisa oo soo diray inay run sheegayaan jiritaanka Allah dhabeeyay yaqiinta la yimid noloshoodan isku bedeshay ee garab igu siiyay markaan u istaagay gabdhaha walaalahayga ah inay qisooyinkooda ila qaybsadaan aad iyo aad ugu hambalyeynaya xaqiiqatan gabdhahaas qisooyinkeyga meesha way ku jiraan laakiin ummadda kama duwani ummaddaasaan ku dhex jiraa alxaasil haddaadan group soo gelin waxaan ku leeyahay abaayo meesha aad uga helaysid farxad meesha noloshaad isku bedelaysid waa halkaasi ka raadso waa inaad ilaahay u laabatid si dhab oo yaqiin ilaahay u laabo waaga markuu kuu baryo indhaha kala furtid alxamdulillahi alladii axyaanaa bacda maa amaatanaa wa ilayhi nashuur dheh ilaahu adee mahad kuu sugnaatay allahaasoo markaan dhintay kadib isoo nooleeyay ilaahay u mahad celi nimcada ilaahay ku siiyey uga mahad celi ka bilow taas mahad celinta ilaahay ka bilow caafimaadkaa haysatay ka bilow dhinaca markaa dhulka dhigaysidna ilaahay dartiis u seexo ilaahay subxaana wa tacaala si dhab oo yaqiin ugu laabo adkaartaada ilmahaada ku akhriso ciyaalkaaga adkaarta ku akhriso adiga isku akhri salaadahaaga duko maalintaada iyo kaa dhammaan adoo qur-aanka akhrisane ku deganaaw diintaada islaamka xishoodkaaga xanta qiibada waxaasoo dhan ka tanasul farxadda nolosheeda taas waayo nolosha macnaha noloshaada farxaddeeda taas waayo tan aad raadinaysa halkaasay ku jirtaa I know annaga dhan waan wada raadinaynaa nolol farxad leh laakiin halkii ku jirta halkaas waa you have to inaad doonatid you have to inaad ka kacdid fadhiga you have to berri inaadan dhihin you have to inaad hadda samaysid waxaa u baahan tahay inaad hadda samaysid waxaa u baahan tahay inaadan berri maahan berriyaan samayna inaadan dhihin hadda aad samaysid u baahan tahay maxaan ku dhihi lahaa ya qaaliya waxa lagu abuurto ogow ilaahay waxba nagama rabo nafsadeena keliya inaan teekar gareyno u baahan yahay in anaga nafsadeena caawino bis oon ku caawino waajibka ilaahay nala saaro bis inaan noqono dad caabudiin ah ilaahay caabudo shaakiriin ah ilaahay ku mahad celiyo xaamidiin ah ilaahay u xamdi celiyo alxamdu lilah alshukru lilah